Soomaaliya iyo Masar khilaaf u dhaxeeyo ayaa soo cusboonaaday. Dowladda Masar laba qodob ayaa laga hayaa. Mid waxa ay leedahay naxdin siyaasadeed iyo wax lama filaan ah ayay nagu noqotay waxa aan ka aragnay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Marna waxa ay leedahay shuraako lagu kalsoonaan karo lama noqon karo madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan kula wadaagayaa xog arrintaas ku saabsan iyo sheekooyinkii ugu waaweynaa oo dunida ay ka qoreen khilaafka soo kala dhaxgalay Qaahira iyo Muqdisho. Aragtidaada ayaa ku banaa inaad ka dhiibatid waxa laga sheegay Soomaaliya madaxweynaheeda ma runbaa mise waa been. Muuqaalkana si shargaray haddii aad nagu cusubtana nagu soo biir. Ila wareejo xoogaal u ah xiriirka Masar iyo Soomaaliya ayaa waxa waraysi uu siiyay ama waraysi ay siiyeen wargeedka la yiraahdo Al-Arabi Al-Jadid ayaa waxay ku sheegeen inuu soo ifbaxayo xiisad aan la shaacin oo u dhaxaysa Qaahira iyo Muqdisho. Xiisadaas ayaa salka ku haysa hakad ku yimid fulinta heshiiskii iskaashiga ee dhanka militariga ahaa ee labada dal ay kala saxiixdeen bishii Agost ee sanadkii 2024. Haddaba halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa nuxurka warbixinta uu qoray wargeyskan Al-Arabi Al-Jadid la yiraahdo oo uga hadlayo khilaafka labada dowladood. Waxaana ku bilaabaynaa maxay tahay sababta dhabta ah ee khilaafka labada dal. Waxa ugu weyn isbeddelka siyaasadda ee Muqdisho. Wargeysku wuxuu leeyahay sida sababta ugu weyn ee xiisadda kicisay waa isbeddelka jihada siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya gaar ahaan isku soo dhawaanshaha degdega ah oo ay Soomaaliya la yeelatay Itoobiya kadib khilaaf soo kala dhaxgalay labada dal kaasoo ay caawimaad ku weydiisatay wadamo badan oo ay Masar qayb ka tahay. Talaabadan ayaa u muuqata in gabi ahaanba ay liddi ku tahay isfahamka istiraatiijiga ah oo ay hore u wada gaareen dalalka Soomaaliya iyo Masar oo mustaqbalka amni iyo badqabka Soomaaliya ku saabsanaa iyo tan gobolka intuba. Qaahira waxay u aragtaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo bilo ka hor muujinayay shuraako dhow inuu Masar kala shaqeynayo khatarta gobolka ka hortageeda sii fiditaanka Itoobiya iyo arrimaha biyo-xireenka Niil uu hadda qaaday tallaabo kala wareeg ah oo 180 digrii ah oo lama filaan ah ayay masaaridu leedahay. Saameynta khilaafka marka oo labada dal hadda u dhaxeeyo. Masar waxaa la sheegay inay gabi ahaanba hakisay fulinta heshiiskii iskaashiga ee militariga ahaa oo ballaarnaa oo labada dal ay kala saxiixdeen dhammaadka sanadkii hore ee 2024 gaar ahaan bishii Agost. Qaahira qorshaha lagu hakiyay heshiiskaas sidoo kale waxaa qayb ka ah inay Masar ay hakisay ama ay joojisay in ciidan gaaraya in ka badan 1000 askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee wadankaasi loo diro Soomaaliya si ay uga qayb qaataan dagaalka Al-Shabaab iyo howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ugu biiraan. Ayadina qorshahaasi waa la hakiyay oo heshiiska kaliya fulintiisa lama hakinin. Sida ay la wareedadu sheegayaan qorshahan hadda waa mid ficil ahaan loo qaboojiyay ama dhaqangalkiisa la qaboojiyay sabab la xiriira kalsooni darrada ee Masar ka qabto hoggaanka siyaasadda Soomaaliya. Dareenka Masar iyo sidoo kale aragtida dowladdaas ay qabto. Go'aan gaariyaasha Qaahira ee dowladda Masar waxay dareemayaan niyad-jab aad u weyn iyo naxdin siyaasadeed oo ka dhalatay isbeddelkan lama filaanka ah ee Soomaaliya ay u jeesatay dhanka Itoobiya iyadoo ka jeesatay dhanka Masar. Masaaridu uma arkaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shuraako lagu kalsoonaan karo waqtigan la joogo. Waxay leeyihiin ma ahan nin la aamini karo oo lagu kalsoonaan karo oo shuraako la geli karo. Wargeedka sidoo qore wayaan isbeddelkan ayaa halis gelinaya sida oo mid ka mid ah ila wareejadu sheegay raasumaal istiraatiiji ah oo ay Masar wax badan ku bixisay sanadihii la soo dhaafay ha ahaato dhanka taageerada militariga tayeenta diblomaasiyadeed ama horumarinta amniga ee kaadirka siyaasadda ama siyaasadda Soomaalida. Xaaladda waxaa sii muujinaya faragelinta iyo danaha iska soo horjeeda ama iska hor imaanaya ee quwadaha gobolka ay Soomaaliya ku hayaan xaaladda sii muujinay. Imaatanka ciidamo Turki ah oo dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa wiji kale ku soo kordhiyay xaaladda Soomaaliya. Sidoo kale dalka Eritrea ayaa waxaa la sheegay inuu ka walaacsan yahay ama uu walaac ka muujiyay isku soo dhawaashaha Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo ku tilmaamay tallaabooyin degdeg ah oo aan laga fiirsanin inay qaaday xukuumadda Muqdisho. Adduunkii ayaa ku wareersan Soomaaliya madaxdeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasaare Xamse Cabdi Barre waxaana ay la yaaban yihiin wadamo ishaya oo khilaaf ka dhaxeeyo oo go'aano adag kala gaaray oo aan isku dabceynin inay rabaan inay maalinba mid ka soo heshiis la soo galaan ama maalinba mid ka soo qadayaan. Itoobiya
iyo waddanka la yiraahdo imaaraadka carabta iyo maraykanka oo dhinaca ay rabtaa Soomaaliya inay wado sidoo kale waxay rabtaa inay wado Masar iyo Eritrea oo ka soo horjeeda Ethiopia inay wado way rabtaa Soomaaliya sidoo kale Soomaaliya waxay rabtaa inay wado Turkiga iyo Qatar kuwaas oo ayagana diidan oo ka soo horjeeda Ethiopia iyo sidoo kale imaaraadka sida wadaan si gaar imaaraadka is hayaan sidaas darteed wadamadaas ay rabtaa Soomaaliya inay isku dhex wado ayagiina waa biyo hoostooda kuwa iska arko isma dul qaataan isma arki karaan waxaad eegi doonaa waxa ugu dambeeya arrintan ku soo dhamaato waxaana muuqata hadda waxa laga dhaxal oo kaliya inay tahay in wadan kasta oo Soomaaliya kalsooni darro ka qaaday madaxa Soomaalida uu ka aaminsan yahay kuwa aan la aamini karin oo aan go'aan lahayn iyo inuu wadan kasta ay banaanka ka taagay oo isha uu ka fiirinayo Soomaalida markii u yimaadaan inta warkooda dhageysto la iska soo diray aad u maasanta adee maxay kula tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa haysato cuquubadii uu ka galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya aadan maxamed nuur madoobe isagana waxa haysato cuquubadii iyo dambiga uu ka galay allah u naxariistay professor maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya labadooduba dhacdooyinka ay dul taagan yihiin oo ay raggii hore ku mucaaradi jireen ama ay ku eedeyn jireen ayaan ku sharaxayaa haddii aad nagu codsato nagu soo bir muuqaalkana si shirgaray aragtidaadana ka dhiibo labadan dhacdo ama labadan nin iyo labadii kale ee hore waxa ay ku eedeyn jireen oo ay maanta dhex joogaan madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ku eedeyn jiray wax kasto oo dhibaatooyin ah oo dalkan ka jiray inay dawladdiisu ku fashilantay isaga ayaa si gaar ah loogu eedeyn jiray isla qodobadiina mid kasta waa uu dul tagay madaxweyne xasan isaga ayaana maanta ku eedan laba qodob ayaa u dhiman waana muddo kororsi loo sameeyo intuu sharciyada ka dhamaado iyo inuu dagaal ka dhaco magaaladan ama uu siyaasiyiin weeraro maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo maqan ku eedeyn jiray shirarkii Muqdisho oo qabsoomi waayo ku eedeyn jiray oo golihii wada tashiga qaran waxa uga digayay in ay baasha xalana dhaafin oo aanay kambaala tagin caqabadahaas oo dhan iyo kuwa kaleba isaga ayaa mid u xisaabiyay waana dul maray ama arag laba qodob oo dhiman sidaan hore u sheegnay waana in muddadii sharciga inta ka dhamaato 2 sano loogu daro iyo in dagaal ay ka dhacaan magaalada ilaahayna ma keeno ninkan aad u jeedin Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe isagana qodobadii uu ku eedeynayay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya allah u naxariistay professor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa isagana haysto hadda koor shir jiraad ayuu qabtay codkan waa ku diin doona oo uu ku leeyahay professor jawaari xaq uma lahan inuu shir gudoomiyo golaha shacabka maadaama mooshin isaga ka dhan ah ee xildhibaano qoreen wuxuu kale uu ku baaqayay in la ilaaliyo sharciga mooshinka xildhibaanada ay soo gudbiyeen la qabto gudoomiye jawaari laga gudbiyana oo banaanka ka istaago kadibna qaladaadka lagu eedeeyay ay baarlamaanku ka fariistaan iyadoo ay shir gudoominayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha iyo kan labaad hadda gudoomiye ku-xigeenka koowaad waa baxay Sacdiyo gudoomiyihii labaad ee golaha shacabkana magaalada uu joogaa isagiina qunful ayuu ku xirtay xaruntii golaha shacabka oo wax shaqo ah socdo malaha isla qodobada wuxuu ku eedeynayay professor jawaari allah u naxariistay banana daabo hadalkii hore ee Sheekh Aadan Madoobe 107 xildhibaan ayaa soo saxiixay mooshin ka keenay gudoomiye jawaari waxay u gudbiyeen qofkii mudnaa oo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahaa qodobkaas wuxuu tilmaamayaa haddii mar mooshin sharci laga keeno gudoomiyaha markaas kadib ilaa cod looga qaado uu ka guulaysto hawshii baarlamaanka asiga ma hogaamin karo sharciga ka joojinaya ilaan waxa lagu yahay waa sharciga markii hore sharcigu ku fadhiyay nidaamkaas hadduu soo baxo oo arrintaas la keeno asiga xaq uma laha markaas kadib inuu maaragtay gudoomiyo taas macnaheedu yahay qof haddii la eedeeyo asiga garta ma gudoomin karo qof la soo dacweeyay oo la soo eedeeyay oo haddana asiga xukunkii ku dhawaaqayo maalin heblaaya loo fariisanayaa hebla gardaran saasa yeelaya ma dhihi karo qof haddii mar la soo eedeeyo wuxuu sugayaa dad qofka waajibkaas iskale waajib gudoomintiis asigaa laga sugayaa saacadii la keenay mooshinka wixii ka dambeeyey hogaaminta baarlamaanka waxaa xaq u leh gudoomiye ku-xigeenka koowaad asigaa hogaamintaas iska leh waxaana siiyey heer hoosaadka baarlamaanka iyo shuruucda noo yaallo ayaa siiyey taas haddii lagu qanci waayo waxay noqonaysaa arrin lagu qaldamay sharciga waa dhawaatay waa aragtaan siyaasiyiinta Soomaalidu mar kasta oo ay xukunka banaanka ka joogaan qofka xukunka ama maamulka markaas ku jira ayay waxay si indhan la'aan ugu eedeeyaan culays kasta oo siyaasadeed iyo amni oo wadanka ka dhaca xaqa loogu leeyahay qofka isaga u soo shaati qaatay
laakiin kuma cabiraan culeyskaas waxa ay dalka iyo waxa ay dowladda iyo dalka Soomaaliyeed ka qaban karaan dabadeedna dadka Soomaaliyeed sidii ugu sheegayaan wax aan loo joogin oo ay sawiro iyo wax kale ugu sawirayaan ayagii markay meesha tagaan isla qodobadii ay shal markay banaanka u joogeen qaladka u arkayeen oo ay dhahayeen wariyaan dastuurka lagu tuman shuruucda lagu tuman Soomaaliya la kala geen ayaa iyagii ku dhaqmayaan waxa halkaas ka muuqato in uusan siyaasiga Soomaaliga ah lahayn damqasho inuusan lahayn go'aan inuusan lahayn sax iyo qalad si u kala maareen lahaa oo ay kaliya aqliyadiisa iyo miirkiisa isugu geeyay iyo xooggiisaba sidii uu kursigaas ku fuuli lahaa dabadeedna oo danihiisa gaarka u qabsan lahaa oo ay ugu horeyso sidii xukunku sii joogi lahaa inuu ka shaqeeyo iyo sidii uu dhaqaale u tabci lahaa bal maxaan ku macnayn karnaa maanta labadan hogaamiye oo dowladda Soomaaliyeed madaxda ugu sareysa kamida gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha qaranka waxa ay ku eedeyn jireen raggii hore oo ay maanta mid ayagii u mareen oo mid kasta ama uu soo maray ama hadda uu xaaladaas ku jiro qaarna u dhiman yihiin wixii shalay la qaldanaa haddii maanta la saxan yihiin oo isku ayagii ku dhaqmayaan maxay tahay waxa aan ka baran karno siyaasiyiinta Soomaalida aad waa mahadsantahay aragtidaada qaybta sayfaalada noo reeb muuqaalkana si share garee haddii aad nagu codsataan nagu soo biir